kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal markastoo caalamka joogtaan soo dhawaada waxaa bilaabeynaa beebe cusub oo markaasi ah financial management oo ah beebada sagaalaad oo horey loogu yaqaanay beebe F9 ee kooska ukumasantiin intii hore u daawatay beebadii F5ka markaasi performance management ahayd oo maalinta waxqabadka uga soo hadalnay xasuusiyo lecturooyinkan on just maaragtay tadhaabasho oo keliya mataqaanaa in detail uma samayn karno kooska sababta waqtigii ma noo saamaxayo waxaa kaloo noo saamaxaynin resourcekii oo waqtiga kow ka yahay iyo maaragtay aaladaha la isticmaalo marka it's just introduction in maaragtay aan ku baraarujiyo in koorsadan ay available tahay cheap ay tahay dadka markaas safar garan karaan muhiimada ugu weyn oo aan channelkan u sameeyna ay tahay in markaas ardayda doonayaan in ay maaliyada iyo xisaabaadka ay bartaan aysan caqabad ku noqonin whether they can afford or not sababtoo ah tuitionkii waa available waa free materialki waa available waa free haddaad soos u baahan tahay oo ah ku saabsan waxyaabaha maaragtay aad kooskan ku baran kartid ila soo xiriiri kartaa drop me a message and then you take it from there beebadan financial management waa beeba maaragtay sida ka muuqato titlekeeda qusayso maareynta dhaqaalaha maareynta maaliyadda beebada waxayd maareynta waxqabadka midana waa maareynta maaliyadda beebada sagaalaad marka waxaa fiirin doonaa waxyaabaha maaragtay ee beebadan tahay mawduucyada aad ku baranaysid imtixaankeeda siduu yahay iyo overally what to expect okay ujeedada loo sameeyay beebadan waxaa weeye in ardayga ama candidateka baranaya beebadan uu helo xirfadii iyo aqoontii looga baahnaa inuu sameeyo go-aano maaliyadeed oo markaasi ku saabsan qaybaha kala duwan ee ganacsiga waxay diiradda saartaa tikniikyaasha oo horumarsan oo markaasi lagu maareeyo maareynta maaliyadda kuwaasoo la falgeli karo xaaladaha caalamka ka taagan ee mal abaalkaan ahayn okay mawduucyada beebadan aad ku baranaysid inta ku xusan ayuu kooban kow waxaa ka mid ah financial strategy iyo planning strategy waxaa waaye qorshaha fog ee maaliyadeed markaasi ama ganacsiga ama organizationka ama companyga ama dowladda hoose ama dowladda dhexe u xeerta ahaato wixii markaas aad gacanta ku haysid oo maareynaysid strategiyadeeda maaliyadeed ee fog iyo qorsheynteeda ayaad ku baranaysaa working capital management working capital waxaa laga wadaa lacagta markaas ama maaragtay sheega hantida markaas maaragtay shaqeynayso working capital okay working capital waxay ka kooban tahay iyo maaragtay qaabka loo manage gareeyo ayaa ku baran doontaa business finance decisions okay go-aanada maaragtay maaliyadeed ee ganacsiga ayaa ku baran doontaa koorsadan business valuation and risk management qiimeynta businesska iyo maareynta khatarta marka leeyahay waa khatarta ganacsiga khatarta maaliyadeed waxyaabaa la maalo ayaa ku baran doonaa investment appraisal techniques okay investment appraisal waxaa laga wadaa tusaale project ayaa rabtaa inaad maalgelisid projectkan waxaa rabtaa inaad ogaatid inuu faa'iido leeyahay inuu khasaare leeyahay sida ku ogaanaysaa qaabka ku ogaan lahayd ayaa waxaa la dhahaa appraisal marka waa miisaamid oo maaragtay maalgashiga ku miisaamaysid techniquekaasna ayaa ku baran doontaa cost of capital and capital structure capital waxaa waaye lacagta markaas oo maalgashiga lacagta la maalgeliyey marka qiimaha ku fadhiya lacagta la maalgeliyey iyo structurekeeda qaabka u kala baxdo ma equity ba ma debt ba deyn miya ma lacag ka soo qaaday oo mataqaanaa adiga aleedahayaa ma mataqaanaa ii sheeg haddii oo ay shareholderka ka soo qaaday ma what kind of shares is it ma preference shares ah ma ii sheegay ordinary shares miya waxyaabahaasna ku baran doontaa meeshan
dividend policy and financing decisions. Dividend policy waxaa waaye dadka maalgashayaasha ah lacagta dib loogu celiyo sanadlaha markii faa'iido la sameeyo lacagta dib loogu celiyo lacagta macaashka ayaa u naqaanaa iyo financing decisions. Financing decisions waxaa laga wadaa go-aanada markaasi lagu maalgelinayo ganacsiga. mawduucyadan dhan ayay qaybadan ka fadhini doontaa. waxaa hubaal ah qaybadan haddii aad samaysid in maaragtay sheegay wax badan aad ka fahmi doontid xaaladda ganacsi ama xaaladda maarayn maaliyadeed. Okay, imtixaanka ayaa meeshan looga hadlayaa. imtixaanka waa imtixaan oo written ah. hadda waxaa lagu soo daray computer based marka CPE computer based exam oo sanadkii 4 mar la qabto bilaha March, June, September iyo November. wuxuu ka kooban yahay imtixaanka laba qaybood. qayb koowaad oo section A iyo section B ah. qaybta koowaad wuxuu ka kooban yahay su'aalo oo kala doorasho ah oo A, B iyo C iyo D camal ah. waxaa lahaa MCQs marka waxaa waaye multiple choice questions marka waa 2 mark haddii maaragtay aad mataqaanaa labadaas mark ama waa helaysaa ama waa waayeysaa. haddii A, B, C, D ay ahayd oo lagu dhaho jawaabta A iyo B inaad doorateed A bis aad dooratid oo B aad qaladid labadaas point saasaa ku waayeysaa. marka waa very tough. it may seem inuu fudud yahay laakiin meesha ugu badan ardayda ay ku dhacaan weeye. okay, section B imtixaanka wuxuu ka kooban yahay xoogaa su-aasha way dheer tahay. information meesha ku jira ayaa badan. ardayda waxaa laga doonayaa in maaragtay ay muujiyaan inay xallin karaan problems la soo dirso ayna fahmi karaan conceptska maaliyadeed ee markaasi su-aasha ay xambaarsan tahay. imtixaanka waa 3 saacadood iyo 5 daqiiqo waaye. 15 daqiiqo waa preparationka. questionnaire koowaad waa 15 oo section A ah. section B na waa 4 ilaa 5 question. hadda laakiin waa la bedelay formatkan. waxaa laga dhigay 15 su'aalood meel ah iyo 2 su'aalo meel ah iyo 2 su'aalo meel ah. 3 su'aalo meel ah oo section B ah and then there is section C oo iyadana 2 su'aalood ah. imtixaankan waxaa lagu baasaa 50%. marka haddaad 50 ku keentid waa baastay, haddaad ka keentidna waa ku celinaysaa imtixaanka. arday u diyaargaroobaya beebadan waxaa looga baahan yahay inuu maaragtay si aad u fahmo maareynta maaliyadda conceptskeeda iyo qaababka maaragtay loo maareeyo. arday waxaa looga baahan yahay inuu maaragtay sheegay uu resource fiican isticmaalo. resourcekaas mataqaanaa available waaye hore usoo sharaxnay. waxaa kamid ah company badan oo maaragtay free tuition bixinayaan. qaaladii hore ka sameynay beebooyinka hore introduction kadib u laabo halkaas ayna heli doontaa. sidoo kale hadda ACC-da waxay sameeyeen material ay gaar u ah material ay leeyihiin oo qoran. waxaana ku dareen portalka ardayda ay ku diiwaan gashan yihiin. waxaana ugu macdareen ACC Hub. marka ACC Hub waxaa ku jira dhammaan beebooyinkii. halkaas ayaad maaragtay ka diyaarinaysaa si free ah. laakiin for you to get this si aad access ugu heshid waa in aad ka diiwaan gashan tahay ACC-da oo aad maaragtay lacagta bilaha ah lacagta sanadlaha aad bixisid and you have access to your ACCA and then markaas you will be able inaad access gelisid oo halkaas cashir ka diyaarisid. contentigooda aad u fiican yahay. ardayda feedback fiican ay ka bixinayeen badanna waxay sheegeen inay ka caawiyeen inay baasaan imtixaanaadka. faa'iidada beebadan ay u leedahay ACC-da waxaa waaye waa core paper. core paper waxaa laga wadaa waa paper markaas muhiim u ah dadka doonayaan inay chartered certified accountants noqdaan oo ah xirfadlayaal la xaqiijiyay oo xisaabiyaal ah in noqdaan dadka doonayaan way u baahan yihiin. xirfadda aad meeshan ka soo qaadatid waxay maaragtay sheegay ay muhiim u tahay financial analysis-kaaga iyo financial managerska iyo corporate finance specialist. dadka shaqooyinka noocyashan kala duwan qabto ayaa maaragtay informationkii iyo xogtii aad kasoo dhaxashay barashadii iyo waqtiga gelisay beebadan dadkan ayaa ku shaqeeyaan. dadkana inay ku shaqeeyaan oo taladan ay qaataan wax gaarsiiyey
waa aqoontii ay dhaxleen. Cirbada inaad fadhiisatid imtixaan ka qaadatid ardayga waxaa looga baahan yahay in maaragtay imtixaanaadkii horreeyay uu soo baasay ugu yaraan ilaa imtixaanka shanaad camal inuu soo gaaray kadib wuu samayn karaa. marka wabiba aad muhiim u ah ardayda sameynaysa way badan waxaa leeyahay good luck. ardayda babooyinka la sameynayaana sidoo kale waxaa leeyahay nasiib wacan, dadaalka la wado waana socon doonaa. waa mahadsantihiin intiina fariimaha commentiga nagu reebtay oo nasoo weydiiyey su-aalaha oo waqtiga noo sameex waa inaan uga jawaabno. rest assured waa fiirin doonaa commentigiina waana idin la soo wadaagi doonaa. sidoo kale in badan oo ardayda kamid ah waxay codsadeen inay heli karaan ama ay jirto meel ay khaasatan aniga igala soo xiriiraan oo ay macluumaad dheeraada markaas ama support ku saabsan qorsdan ay markaas igu weydiiyaan. ayadana waxaa idin sheegayaa in ay qorshe ku jirto in dhawaan maaragtay meel aan kala wada qaadano samaysano. iyo intaan dib u kulmi doono waad mahadsantihiin waana idin salaamayaa in badan maalinta habeenka galabka waqti kasta ku tahay ha idin wacnaado. asalaamu calaykum.